بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن الدعوة waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha oo ciyaar kala aad kaga barateen aad ka daawataan Raj Sports TV waa maalinimo isniina taariikhdan ay ku aasaysan tahay 15 bisha 11 ee November sanada 2021 qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya qaranka Portugal oo halis ugu jiraan inay ka haraan dhacdada ugu weyn ciyaaraha ee koobka adduunka ee Mundiana oo lagu balansan yahay sanada 2022 dalka Qatar kadib markii khasaare xalay kala kulmeen qaranka Serbia qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa ku jiri doona Tottenham iyo Manchester City oo Arsenal kula biiray raacdada loogu jiro 22 sano jirka waxdaraha ka dhigaya qaranka Serbia iyo Fiorentina Duzana iyo Viola oo shaaciyeen qiimaha ciyaaryahankaasi lagu heli karo qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa ku jiri doona Sawir Ay ka wada jiraan Milkiilaha Psg Nasir Al-Khalifa iyo ciyaaryahanka Manchester United qaranka Faransiiska oo Paulo Pogba oo saxafiga caanka ee reer Talyaani bartiisa Twitter ko soo dhigay ayaa ku jiri doona wararkaas oo cirka ku sii shareeraya wararka Paris Saint-Germain la xiriirinaya Paulo Pogba qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa ku jiri doona laacibka qadka dhexe Netherlands iyo Manchester United Donny van de Beek waxa uu shaaca ka qaaday in uu ka tagayo bisha January Manchester United qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa ku jiri doona Borussia Dortmund waxa ay shaaca ka qaadeen in ay bisha January ee daneynayaan Hakima Ziyech oo Chelsea ka tirsan iyagoo wakiilada ciyaaryahankaasi la xiriireen Barcelona saddex ciyaartoy oo Manchester United Chelsea ka tirsan ay bisha January ee xiiseynayaan qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal kaga bogan doontaan maanta oo isniina aniga Xasan Cabdillah ayaa barnaamijka idin soo halkaan idin kala socodsiinaya waana markale barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ee Raj Sports TV qodobadii aad daawateen daawadayaal waxay qodobada ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha maanta oo isniina qodobadii aad daawateen haddii aan ku bilaabana qaranka Portugal oo hogaamiyo superstarka Portugiiska iyo Manchester United Cristiano Ronaldo ayaa halis ugu jiray inay ka haraan dhacdada ugu weyn ciyaaraha ee koobka adduunka kadib markii xalay khasaare ay kala kulmeen qaranka Serbia oo 2 gool Portugal ku garaacay Portugiiska ayaa xalay u baanaa dhibic kaliya aysa khasaare kala kulmeen qaranka Serbia Portugal ayaa la ciyaari doonaan kulan kala baxo play-off xulka kaalinta saddexaad groupka ee kaga jira oo ay ka wada tirsan yihiin ee Republic of Ireland dhinaca kalena Tottenham iyo Manchester City ayaa Arsenal kula biiray weeraryahanka waxdaraha ka dhigaya horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A ee Viola ka tirsan Fiorentina iyo qaranka Serbia Dusan oo 22 sano jira waxaana Fiorentina ee shaaca ka qaadeen inay dhageysanayaan dalabyada ku aadan Dusan oo weerarka kaga ciyaara Fiorentina ayaa shaaca ka qaadeen in ciyaaryahankan adeegiisa ay kaga sabri karaan adduun lacagada gaaraya 70 milyan oo lacagta ganiga sterlinka sida majalada Dusan ignan laga leeyahay oo soo xiganaysa jaraa'idka Calcio Mercato ee Talyaaniga laga leeyahay weeraryahankan ayaa kooxaha ugu tunkuweyn horyaalka dalka Ingiriiska ee ku dagaalamayaan adeegiisa waxaana haatan Viola ee shaaca ka qaadeen qiimaha ay ku fasaxayaan ciyaaryahanka reer Serbia ee Dusan oo 22 sano jira dhinaca kalena laacibka reer Netherlands iyo Manchester United kubadda sameeyay hore ee ayakiisa ninka qadka dhexe ka duulaantaga isku darsaday inuu kubadda sameeyo sidoo kalena oo kubadda joojiyo ee la yiraahdo Donny van de Beek oo 24 sano jira ayaa shaaca ka qaaday in markaan dulqaadkii uu ka dhamaaday ciyaaryahanka kursiga keedka marti u noqday Manchester United isagoo aan fursad ka helin tababaraha cadaadiska uu saaran yahay ee reer Norway ee Ona Goyer Solskjaer
Donny van de Beek ayaa wakiilkiisa u sheegay inuu doonayo in bisha January uu raadiyo naadiga booska joogtada uu ka heli karo. Van de Beek madaro waxay ku waramaysaa in ciyaaryahanka haatan oo xiise ka helaya naadiga Premier League ciyaarta ay Wolverhampton Wanderers kuwa uu doonayo bisha January ee Manchester United ay kala xaajoodaan suurtagalaashaha ay ku heli karaan adeega qadka dhexe Dutch-ka iyo Manchester United. Donny van de Beek dhinaca kale naadiga Borussia Dortmund ayaa la xiriireen wakiilka ciyaaryahanka reer Morocco ciyaaryahanka aykiisa Hakim Ziyech ka uu ku dhibaatoonay geedi Stamford Bridge. Ziyech ayaan ka mid ahayn safka joogtada ee tababaraha Chelsea maamulaya reer Germany ee Thomas Tuchel, waxaana haatan Bild ku waramaysaa in wakiilka ciyaaryahanka ay wadahadal la fureen Dortmund iyagoo bisha January doonaya inay la soo saxiixdaan Morocco ciyaaryahankooda Hakim Ziyech. dhinaca kalena xidiga qadka dhexe ee reer Faransa iyo Juventus Andre Rabiot oo 26 sano jir ayaa shaaca ka qaaday inuu xiiseynayo inuu dhaqaaqa Premier League gaar ahaan naadiga St James Park ku ciyaartay Newcastle United. ciyaaryahankii hore ee Paris Saint-Germain Andre Rabiot ayaa doonaya inuu ku biiro naadiga maalqabeenka reer Sacuudi oo iibsaday ee Newcastle United bisha January. Calcio Mercato oo Talyaaniga laga leeyahay sida ay ku waramayso. dhinaca kalena Chelsea ayaa waxay isha ku hayaan weeryahanka reer Talyaani iyo naadiga Napoli ninka la yiraahdo Lorenzo Inzia. 30 sano jirkaana ayaa galay bilooyinka ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa, wuxuuna ciyaaryahankani ka mid yahay 10 ciyaartooy oo baa xurta lagu heli karo bisha January. Lorenzo Inzia ayaa waxaa doonaya tababaraha Chelsea maamula ee Thomas Tuchel bisha January ayaana baa xurta lagu saxiixan karaa. dhinaca kalena saxafiga caanka ee wararkiisa lagu kalsoonaan karo ee Fabrizio Romano ee bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay sawir ee ku wada jiraan Paul Pogba iyo Milkiilaha iskale naadiga naadiga Paris Saint-Germain ee Nasser Al-Khalifa. Paul Pogba ayaa bilooyinka ugu dambeeyay heshiiskiisa Old Trafford ku guda jira, wuxuuna joojiyay wadahadalladii qandaraas kordhinta ee Manchester United. sawirkan ay ku wada jiraan milkiilaha Paris Saint-Germain Nasser Al-Khalifa iyo Paul Pogba ayaa uu dab ku sii shidaya wararka PSG la xiriirinayo 28 sano jirka qadka dhexe ee Lisbon Faransa iyo Manchester United Paul Pogba iyo sidoo kale raacdada ciyaaryahankaas adeegiisa loogu jiro Real Madrid ee qayb ka tahay. dhinaca kalena Norwich City ayaa waxay shaaciyeen in 2 sano iyo bar heshiis ee la gaareen tababari hore ee Aston Villa Danny Smith. ninkani ayaa Aston Villa laga eriyay, waxaana haatan oo qabtay naadiga kaalinta labaad Premier League naadiga kaalinta labaatanaad Premier League kaga jirta ee Norwich City. kuwa ciyaaryahankan bilowga ka yimid horyaalka heerka labaad ee Championship-ka. Norwich City ayaa guuldarrooyin la dhacaya xilli ciyaareedkan Premier League, waxaana haatan xilkaasi loo magacaabay oo tababaraha cusub ee Norwich City noqonaya Danny Smith oo Aston Villa shaqadeeda laga soo eriyay iyadoo xilkaasi loo magacaabay ciyaaryahanka hore Liverpool iyo Three Lions Stephen Gerrard. inta ayaan ku soo gabagabaynayaa saaxiibayaal barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha maanta oo Isniina. aniga Xasan Cabdullaahi barnaamijka idin saar halkaan kala socodsiinay dib inta uu kulmi doono amaanada.